السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhammaan khiyarta ku xidhan channelka Soomaaliya Network Classroom. Waxaan noo soo koodis kalam gabay kombatiya ee balas karan chapterkii glossary-giisa ku bidayeen ku guda jirnay. Waxaan rajeynayaa arday walbaba inuu eray bixinadii tiradoodii noo wado. Waxaan gaarsiinaa hadduu alima 100 eray bixin marka insha Allah halka la marinayo idinka insha Allah inoo tirin doona. Taas waa taa maanta eray bixinta ama shanta eray bixina halkan ku eegi doona fiidiyogan ama casharkeena maanta ama lecture-keena maanta eray bixinta ugu horeysa waxa loo yaqaan NAT oo loo soo gaabiyo network address translation okay network badana qoraalkayga haduu isku xumaado hadana qoraal in afkayga la fahmayo iska network interface translation ama wax loo yaqaan tarjumati al-anawin al-mandaqiyya tarjumati al-anawin al-mandaqiyya luqadda saxan noqosi waa tarjumada cinwaanada network ay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa hadda marka dhacno bal oo fiirsan luqadeena Allahu saaleey marka dhacno network address translation luqadda Soomaaliga ka dhig wax noqonaysaa tarjumada turjuma waa luqadda Carabi cinwaanada oo iyaduna luqadda Carabi network iyaduna luqadda English marka subhanallah marka luqadeena Soomaaliga waxba yar ka sii dhimale taas waa taa network address translation ama tarjumta canawin al-mandaqiyati lin shabaka ay noqoto luqadda Carabiga وبحي network هذا network address translation ومحاطه waxaan ku leeyahay network address translation san isla garano horta waxa la ogsoonay computer walbaaba sidii internetka wala xiriiro ama waxa uu leeyahay IP address hadda waxa leenahay qaacido meel ku qoro IP-ga uu computer-kaagu leeyahay laba midkood buu yeelan karaya ma haddii computer-kaagu saaxiibkayo uu computerada kale ee la local area network hadduu rabo inuu la xiriiro ka wuxuu adeegsanayaa IP address-kiisa private-ka ee markii horeba la siiyay ee administrator-ku siiyay ama DHCP-ga uu ka soo akhrisay ayuu kugu xiriiraya laakiin hadduu rabo inuu internet-ku baxo ka private-ka ma jiro waa inuu yeesho ama uu qaato mid public ah public IP address ayuu internet-ka kula xiriiri karaya hadda waxa su'aal ah maxay ku kala dhigan yihiin waxa leenahay IP-ga kan private-ka local area network buu ka anfacaya laakiin kan public-ka waa ku saamaxaya internet-ka inuu boqdo la'aantiina internet-ka hal ba jeeday maba booqan karayo oo waxa la oran doonaa no connection ayaa lagu oran doonaa marka internet-ka uu browser-rada iyo uu isla ku asoofo taas waa taa waxa su'aal ah yaa siinaya garanay kan private-ka network administrator-ka ama si statically u siinaya ama hadduu la idmo DHCP server-kii buu ka soo akhrisan kan public-ka ayaa siinaya waxa leenahay waxa jira router-kaaga qalabkaaga loo yaqaan maxay router-kaaga oo halkan yaala saaxiibkayo router-kii saamaxay internet-ka booqatid ayaa waxa uu leeyahay table loo yaqaan NAT table oo loo yaqaan network address translation kaas oo macnaheedu tahay each computer wal oo dibadda u baxaya sidoo dibadda ugu baxo wuxuu sii siinayaa maxay passport uu ku baxo ama IP address ku baxo inagoo naqaanayo marka Hargeysa ama Soomaaliland joogno passport-lada loo qaybay mid iska private oo inta Hargeysa gudaheeda ama aan dhahno aad kala bixi laakiin marka dad loo baxay ka Soomaaliya aan qaadan saas si lamid ah computerada gudaha yaala haddii rabaan iyagu xidhiidhiga leh laakiin haddii lama dibadda loo baxo router-ka wuxuu sameyn doonaa wuxuu diyaariyay table loo yaqaan network address translation table-ka waxa ku jira computer wala oo gudaha yaala iyo IP address-ku uu qaadan lahaa si dibadda ugu baxo marka waxa leenahay network address translation waa hanaanka uu router-kaagu sameynayo sidoo computer hadaa u fiirsan qeexitaanka si network address translation maxaan dhahnay waa hanaanka uu router-kaagu sameynayo sidoo ugu ogolaado computer gudaha jooga inay internet-ka booqdaan iyagoo qaadan doona ciwaano public oo ka tagi doona ciwaanadoodii private-ka kaas oo iyaga ay ku isticmaali kareen gudaha network markale aan ku celiyo network address translation waxa weeye waa technology ama waa table ama waa technology uu sameynayo router-kaagu kaas oo ku salaysan inuu computerada gudaha yaalay uu ogolaado inay dibadda u booqdaan isagoo siinayo ciwaano wuxuu siinayaa ciwaano public ah isagoo kana sii dhigi doona ciwaanadoodii private-ka ahaa eedaankii gaadhay eray bixinta labaad halkan aan ku dari doono dedejin waxa loo yaqaan BGP oo loo soo gaabiyay pretty good privacy ayaa loo yaqaan pretty good privacy oo maxaa tahay waxa la yiraahdaa pretty good privacy waa tiknoolajiyad ama waa algorithm kaas ay u ogolaanaya xogtii hawada mareysay in hadduu alla idmo in ay secure ama in la encryption gareeyo tusaale halkan wax fadhiin loo yaqaan Bob halkan wax fadhiin loo yaqaan Alice inanta loo yaqaan Bob waa inan Bob waa wiil Alice-na waa inan ka soo
booba waxa uu rabaa magacadooda magaciisa lene ayaa wuxuu rabaa inuu fariin u diro Alice oo ah hello Alice Alice ii waram okay xogtaas hadaa hawada si dhaxmaraysa iyadoo caadi waxa dhacaysa in hackerku weerarada tinma xogta uu xado ama wax ka bedelo laakiin BGP oo pretty good briefs oo technology ama algorithm waxa sameeyay hawadaas inta xogta si socoto in hadii la encryption laga sii dhigo oo nidaam qoraaleedkii wax laga sii bedelo madama ka hebel gaadhana uu isagoo caadi u helo haddaba si xogtaadii ninka loo yaqaan Bob xogtii uu dirayay oo qoraal caadi ah uga dhigo xog aan ahayn mid aan la fahmin wuxuu adeegsanayaa Alice ninka loo yaqaan ayuu wuxuu soo diri doonaa key ama fur u soo diri doonaa 3 number ama 4 number ka kooban oo kale wuxuu la diro xogtaadii ugu soo diri rabtid ku soo qufil furaha marka xogta furaha ku soo qabshinta hawada dhaxmarayso waa encryption marka aniga ay timaadana kaygii brevetka ahaa ayaan insha Allah hadaan alba ku furi doonaa waxa jira wax loo yaqaan RDP ama remote desktop protocol ahna protocol saamaxay computerkaagu inuu computer ka fog uu la xiriiro waxa jira wax loo yaqaan SCP oo loo sagaabiyo secure copy protocol waxa leeyahay waa protocol kaas oo saamaxaya in computer local machine ama computer uu la xiriiro server ka fog ama cagsiga u dhacdo laba server oo kala fog iyaga lafdigooda ay faylasi wadaarsadaan marba ku celiya protocol loo yaqaan SCP waa protocol u saamaxaya laba computer عندنا كمبيوتر local ah iyo server fog inay wada xiriiraan faylasi wadaarsan faylashaasi waki waa secure waa qaar amni qaba ama laba server oo kala fog waa kala xiriiraya kala magaalo jooga waxa midna joogaan India midna wuxuu yaala Hargeysa faylashiisu wadaarsan faylashaasina waa secure wax loo sagaabiyo secure copy protocol ee bixinta ugu dambaysa wax loo yaqaan TCP imsada ka dambaysa waxa rajeenay waa ee bixintii ugu dambaysay TCP waa maxay waxa leenahay waxa loo sagaabiyo transmission control protocol/internet protocol waxaan muxuu saamaxay waxa leenahay waa tiknoolajiyadu saamaxaysa in wax la isku diro oo maanta waxaan aragnaa adigoo hataa tahay adigu halkan oo kale sender aad soo diraysa adigu anaan halkan oo kale aan fadhiyo oo aad hawada waxa igu soo diraysid tiknoolajiyada iyo background ka dambeeya inaad xogtaasi adiga ka timaado internetka ama hawada soo dhaxmarto waa tiknoolajiyada loo yaqaan TCP/IP itno kaliya maahay marmarka laga wareyn buuga gooni laga qoraa marka network balaaska tagtina waxaan ka diyaariyay chapter gooni ah intaas ugu soo gagabeynay. Assalaamu calaykum.